aragtidan valuationka Darwin, Charles Darwin 1859 60 meelahaas inuu dhintay baan filaya oo aadamuhu daanyeer bay ka soo jeedaan oo dunidani wayse soo rogrogtay oo daanyeerkii baa noqday. quraanku magacada wuxuu ka istaagay aadam ciid baa laga abuuray, laa aabba aadan oo kaloo dhalay baan jirin, walaa jin baan dhalin, walaa daanyeer buusan ka soo jeedin. ina mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadam khalaqahu min turaabin. ciiddii laga abuuray baa laga sheekeeyey oo la faahfaahiyey iyadoo dhooba ah, iyadoo qallalan, iyadoo in dab lagu adkeeyey aada boodayso baa si fiican la faahfaahsan baa looga soo sheekeeyey. kadib waxaa laynoo keenay aragti aqoon laga dhigay oo xiisad kacdoon iyo diimo ku kac la falgashay oon aasaas cilmi ana lagu dhisin, xaqiiqo la taabtayna lagu dhisin, iyada lafteeduna run aan ahayn oo beena baa layidhi daanyeer bay ka soo jeedaan, lafaa la keenay wuse soo bedelay. ayb waxay noqotay naskii sharciga ahaa ee waxyigii ilaahaygii abuuray uu sheegay baa waxaa ka hor yimid ciid lagama abuurina daanyeer baa dhalay. saddex markii saddexdaba la miisaamay warkii meel la waafuuli waaye. hadday aragtidu tahay taariikh hore daanyeer ba aadama noqday, ku hadda noqday oo muddo soo wareegaya ma la arkay intii ka dambaysay, ma la arkay, lama arag. waagaasaan qiyaasaynaa inuu iska soo gadoomay maahane 1860kii imisaa ka soo wareegtay haddana 2000 iyo joogno 20 muddo dhowr boqol oo sana ka soo wareegtay. boqol iyo 60 sana ka soo wareegtay. weli hal daanyeeroo dad isu bedelay ma la arkay oo dad noqday. nin wuxuu iga sheekeynaya shaabulcaynayn masar waa uu joogay, mid baa mid la hadlay yidhi wuxuu walaa waxaan ka shaqeeyaa weli afrikadaas hadda kuwa sayntii ka go-do geedaha afrika ka soo degaya oo dad noqonaya joogu yidhi daanyeero sayntii ka go-aysa oo dad noqonaya. marka waxa markii sheekada iyo hawhaada laga tago, haddii waxani wax soo socday oo dhacay ay ahayd, daanyeeradii way jiraan, way tarmayaan, way isdhalayaan. hal daanyeeroo dabadu ka go-doo dad noqda maxaa loo waayay? haddaba waxaan sidaa caadi ku noqotay waxay ahayd mar labaad inay noqoto, mar saddexaad noqoto, mar afraad noqoto. markii la yidhi lafihii aan doonno, lafahan aad tiraahdeen aadamaha asalkiisay ka soo jeedaan nataabsiya, waa la waday laba arrimood inay dhaceen waad ka warqabtaan baan u malaynayaa. lafihii waxaa la yidhi waxaa la raadiyey nooc doofaara oo North America ku noolaan jiray oo dabar go-ay waa daanyeerba ma ahayn. laba muqtaan filaya hadda 2003 mise 2004 inay ahaydna ninkii waktigan fikradda Darwin ee daanyeer baa laga soo jeedaayo Afrika la tagayo gorilla madaxiisa la soo helayo kuwa hore la hore aadamo u jaan jiray Ingiriiska ah London wakii boolis ku dhacay gurigiisa isagoo madax aadama laf intuu ka soo jara mid daanyeerna ka soo jara isku kaba waatan leh hal baarade waatan iyadii baa isbedbedelayso noqonaysa kanay daanyeerka ay dhinacan aadama isu bedelaysa isagaana isu jarjaraya wakii la qabtay maxkamadda la saari jiray. marka wuxuu been la alifayay inay ahayd baa soo baxday. markii la yidhi sidee buu ugu ka soo noqday, camaliyad xisaabeedna tusa ama cilmi la tix raaci karana tusana waxba way samayn waaye. waa qolada tirin adduunku waa iska abuurmay, say isaga abuurmay waxay dhaheen ka soo qaad hadduu kombiyuutarkan keyboardkiisa daanyeer 1 milyan oo sana ku ciyaaro kelmad isku toosan ka soo bixi kartaa. waxaas hadda cilmi lagu salayn karaa. okay ma jira daanyeer 1 milyan sana ciyaaray, 1 milyan oo sana markuu ciyaaray xubnahan bini aadamka iyo caalamkiisa u samaysan ma samayn karaa? oo hadda daanyeer baa tiri iskaga ciyaaraya adigii caqli lahaa oo samayn laada. waxani waxaa la ogaaday markii waagii hore gumaysigii iyo fikrad iyo aqoon baa laynoogu keenay, buuq baa la kiciyo diintay ka hor imanaysaayo isbedelka aadamihii iyo khalqigan isa sii bedelayo sheekadii la dabagal laa lafihii baan daanyeer noqon, walaa daanyeer dad soo noqdaan la helin, walaa qaacide cilmi oo la tix raaca yeelan weyn. kulluhu kadib fii kadib waa un aadamahan daanyeer baa keyboard ku ciyaaray waay, been baa keyboard ku ciyaaray way ka dhagdhan kartaa, waxaas cilmi maaha. macna waa sheeko caruur weeye meelaha lagu haasaawo shuuciyaddii iyo hanti wadaagii aadamahan adduunka ilaah ma leh
sheekadii ahayd ku salaysan waay darwiiniyaduna saasay ku salaysnaydo diimay ka soo horjeedayo ilaah baa waxaan abuuray ha looga dambeeyo oo la diidanaa baa loo meelmariyey